musharaxiinta saddex xisbi qaran xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka shirguddoonka guurtida guddoomiyaasha maxkamadda sare taliyaha ciidanka kala duwan taliyada ciidamada kala duwan ee qaranka dhammaan waxaan idinku soo gudbinayaa salaan xambaarsan hilow niyad sami nabadgelyo iyo naxariis eebbe. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudanayaal, sida aynu la wada soconno muddo bil ka yar ayaa inaga xigtaa qabsoomidii doorashooyinka madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan. sharaf weyn bay ii tahay inaynu xalinay duruufihii ku xeernaa geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashada dalkeena. ugu horreyn waxaa waajib inagu ah inaynu allaheena weyn u mahad celinno. mar labaad waxaan jecelahay inaynu madashatan ka bogaadiyo howlwadannadii aan u igmaday xilalka kala duwan ee gacanta iga siiyey hogaamiye ahaan dhammaystirka in dalkani ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, taasoo darteed daruurteeda aynu dul joogno. si gaara waxaan u hambalyeynayaa guddida doorashooyinka iyo madaxda xisbiyada qaranka dadaalka ay muujiyeen iyo doorkii ay ka qaateen howlaha doorashooyinka. mudanayaal, doorashada aynu dhowaan u dareerayno idan eebe waxay mustaqbalkeena ku leedahay saameyn weyn. anigu madaxweyne ahaan markaan eego baraarugga bulshada iyo bisaylka musharaxiinta bartamaya wax werwerba qabo. hase yeeshee waxaan jecelahay inaan dhammaan halkan idinka soo jeediyo hadallo duco iyo dardaarana, taasoo ah ujeeddada aan idinku martiqaaday caawa. mudanayaal, doorashooyinku maa wax inagu cusub ee waxaanu leenahay khibrad iyo waayo aragnimo inagu filan. sidaa darteed waxaa mad ahaan inala gudboon inaynu xakamayno xamaasadda iyo xagtimaha loolanka dhexdeenu keeni karo. waxaan leeyahay doorashooyinka laguma kala baxo ama laguma kala badiyo xanaaq, xisad la kiciyo iyo hadallo xajiin iyo xanaf leh, balse duca qabayaal. doorashada waxaa loo kala helaa taageerada bulshada iyo sida loo kala kasbado tegidda caqliga codbixiyayaasha. haddaba waxaan 6 murashax ee u tartamaya hoggaanka dalka u joojinayaa dardaaran kooban. mudanayaal, waa inay dhowrtaan shuruucda iyo xeerarka nidaamka doorashooyinka dalka. sidoo kale waxaa waajib idinku ah inaad u nuglaataan talooyinka, tilmaamaha iyo amarada guddida doorashooyinka qaranka ee garsoorka idin ah. duca qabayaal, waxaan idin leedahay lafaha gura, xaraganaha ka tegina. sidoo kale waxaa idinla gudboon inaynu taageerayaashiina ku wargelisaan inay elayaan anshaxa iyo nidaamka doorashooyinka, isla markaana ay ka fogaadaan cunfiga iyo wax kasta oo nabadgelyo darro abuuri kara. 3, waa inaynu dhinac uga soo wada jeedsano cid kasta oo abuuraysa xasilooni darro iyo xiisad colaadeed. waxaa waajib inagu ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ku ah inay murashaxiinta hortooda fadhiya inay gacan siiyaan ciidamada qaranka ee ku howlan adkeynta nabadgelyada iyo sugidda amniga dalka qaranka. 4, hore ayaa loo yidhi guuri 2 nin kama wada qosliso. sidaa darteed kursigan aan ku fadhiyo ma qaado 2 iyo 3 nin toonna ee dalkan waxaa madaxweyne ka noqon doona nin qura. sidoo kale waxaa ku-xigeen ka noqon doona 1 nin. mudanayaal, waxaa hoggaanka dalka ku wareejin doonaa 2 murashax ee doorashada sifo sharci ah ugu guulaystay insha allah. sidaa darteed saaxiibada loolamaya waxaan leeyahay
marka ay soo baxdo natiijada doorashada waa inaad aqbashaan oo ogolaataan natiijada doorashada. qarankani wuxuu ku soo meel maray habdhaqan ku dhisan tudhaale, tala wadaag, tawfiiq iyo isu tanaasul. duca qabayaan ma aha guuldarrada siyaasaddu in doorashada la kala adkaado, balse waxaa guuldarro ah iyo garaad xumo ah inay ku gacan saydho go-aanka guddida doorashooyinka iyo maxkamadda sare. waad xusuusan tihiin inaynu kaga tagnay kursiga madaxweynenimada abril 2003 siddeetan cod oo aan muran ku jiray. waxaan u tulay shacbigayga iyo sharaftayda kumana khasaarin. taasi waxay ii goysay inaan isla kursigii ka helo 50% codadkii codbixiyayaasha dalka. waxaan bogaadinayaa mudane daahir yaale kaahin, madaxweynihii hore ee aqbalay natiijadii doorashada madaxtooyada ee qabsantay 2010 ee hoggaanka dalka igu wareejiyey la igu doortay, isla markaana xilkii qaranka igu wareejiyey si sharaf iyo qadarin leh. sidoo kale waxaan bogaadinayaa guddoomiyaha xisbiga UCID mudane Faysal Cali Waraabe oo isna aqbalay natiijadii doorashada. guddoomiye Faysal waa waayo arag, waxaan ku ammaanayaa inuu aqbalay go-aankii guddida doorashooyinka qaranka ee natiijadii 2003, 2005 iyo 2010. mudanayaal, guddida doorashooyinka qaranka waxaan kula dardaarmayaa dadaal, dulqaad iyo daacadnimo. waxaan uga digayaa garweecsan iyo guddoon jilicsan oo ah geerida guddiga dhexdhexaadka ah iyo hay'adaha garsoorka. waxaan idinku ducaynayaa in Ilaahay idin garab galo, xilkiinana idinku asturo. ugu dambeyn, dhammaan ciidamada qaranka waxaan ku bogaadinayaa habeen iyo maalinba heeganka oo ah ugu jiraan difaaca iyo adkeynta nabadgelyada dalka hooyo. taliyayaasha ciidamada qaranka waxaan kula dardaarmayaa inay dadaalkooda labalaabaan xilligan si ay si buuxda ugu shaqeeyaan guddida doorashooyinka qaranka. dhinaca kale, waxaan farayaa inay gacan bira ka qabtaan cid kasta oo isku dayda inay fowdo iyo fadqalalo ka abuurto dalka. ciidanka qaranka waxaa ka reeban inay ku dhex milmaan olayaasha doorashooyinka iyo xisbiyada qaranka. xisbiyada intaba waxaan shacbiga Somaliland leedahay musharaxiintu xaq idinkuma laha inay dhex dhigaan colaad iyo ciilqab, balse waxay xaq idinku leeyihiin oo keliya inay idin weydiistaan caawimo iyo cod. sidaa darteed waxaan idinku baaqayaa inaad si xil weyn iska saartaan ilaalinta midnimada, wadajirka, nabadgelyada iyo qarannimada dalka. guntii iyo gabagabadii, anigoo munaasabadan ka faa'iidaysanaya, waxaan cambaaraynayaa isla falka argagixisada foolshoqan oo ka dhacday caasimadda dalka aynu dariska nahay ee Soomaaliya. waxaan tacsi tiirayal u dirayaa qoysaskii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkii rayidka ahaa ee halkaa ku geeriyooday. gallad eebbaa leh, guulna Somaliland baa leh. Allahan tirkataysan haynugu hanuuniyo, allahan bashbash iyo barwaaqaha baladeeda haynugu siiyo, allahan boggeena iyo burcan iyo beerkeena barcad haysu mariyo. aad iyo aad waa mahadsantihiin.